السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام والله لا يدوك من كستك جوجتين. انت عافمتك قبت عافمتك إله وزيادي، انت حنوصن إله عافمات دقدقة هسية، انت لمتن إله جنة فردوسة هجيو آدي بايدي السلامة دمان dadka igu xiran ee sharafta leh. waxaan rabaa maanta inaan anigu waa taqaaniin runtii qabiilka ma hadlo. I don't give a damn about qabiil. I don't care about maaragtay qofku wuxuu ka dhashay iyo meeshuu ka yimid. ma kala jecli maaragtay siyaabaha ay dadku u dhaqmaan ma eego. weligay kuma korin, ciyaalkayga kuma korinin. dadku waa ii siman yihiin, soomaali oo dhan waa ii siman tahay. of course qabiilka waa litatacaarafu, dadka ehelkaaga saa dadka kale uga garatid waa wax muhiim ah, laakiin anigu ma kala jecli dadkan maaragtay ka dhigtay qabiilka diinta. marka waxaan videogana hadda shalay mahandarada la soo diray, weli umaan diyaar garoob. waxaan isdhahay diyaarisid. waxa waaye runtii busy iska noqday, waa iska shaqaala leeyahay. laakiin waxa aad ii dhibay dadka islaamka isku sheegaya oo diinta islaamka magaca islaamka dadku ku fidnaynaya aad ii dhibay. videogan waan soo gelinayaa ninkan siduu u hadlaayo iyo niman kaleeto meesha ku jira, iyo siday qabyaaladda ay jihaad uga dhigayaan. yes, dad badanaa la laayay, dad badanaa maaragtay laascaanood iyo dhulkaas aad laysugu laayay oo waxaan qabiil ahayn, iyo niman wasakha oo iigogooda maaragtay iyo kibirkooda ku shaqaynaya, maaragtay isku laynaya. oo waa wax last 32 years soo socday. maalinbaa oday maaragtay reason uu ku leynayo maaragtay ku dagaalamay aad aqoonin, maaragtay isku qabsanayaan. haddana waa aragtay waxa ka socda maaragtay waad aragtaan kulligiin laascaanood iyo maaragtay hargeysa waxa ka socda, iyo burca iyo inta waqooyi oo dhan. aniga ay thought kulligoodba inay maaragtay ay maaragtay dad ehelo isdhalay oo wada dhashay oo maaragtay yihiin. maba fahansaniba waxa la isku dagaalamay ilaa hadda. waxa waaye dhulkay naga qaadaya inaan madax noqono keligeed. kuwii hore hataan la qaabilin, kuwii horeeto oo maaragtay somaliland oo intaas sano soo jirtaan la qaabilin, oon maaragtay la ogolaanin, oo adduunka dhan laga qaabilin inaysan keligood dowlad socota aysan ahayn, oo maaragtay keligood loo ogolaanin la ixtiraafinba gebigoodaba inay maaragtay dowlad yihiin. markaasaa hadda kuwo kale waxay rabaa inay goostaan iyagana. waxa waaye soomaalidii waxay fahamka waxa ka maqan. warheedha adduunku waa dhismaya. adduunkii dadkii guryihii iyo adduunkii iyo maaragtay dadkii way dhisteen, adduunkoodii bay dhisteen. annagana waxaana laka karla'yahay warheedha intay heshiisiin kulligiin nin iska soo saara idin wada xukuma soomaaliya oo dhan. yes, Somaliland is peace, is beautiful and everything, but waxa weeyaan meel ay ka maqan tahay malaha fidno iyo maaragtay iyo wax. haddana waa kuwana ayagii islaynaya oo dhulbahantii loo kala baxay hadda iyo saaq, oo maaragtay social media habartii kacdaba ay caytamaysaa, odaygii kacaba oo caytamaya. laakiin aniga hadda waxaa aad ii dhibaya dadkan diinta islaamka magacooda jihaadka, erayga jihaadka la dhaho yaa aad buu ii dhibaya runtii. in la kiciyo dad masaakiin ah oo wax allaali iyo wax ayagii quutul yoomka raadsanaya lagu laynaayo, oo maalin kasta intaasoo dhalinyaro, intaasoo ciyaalay, intaasoo maaragtay hooyooyina la qarxinayo. wax lagu qarxinayana la aqoonin, just because laba ninaa iigogooda isku kacay. kan aanan rabin inuu ka kaco xukunka, iyo mid kaloo asagu raba inuu kaco maaragtay koro positionka kan kaleeto. that's the whole point. markaasaa la yidhi bal ha laga kiciyo, qasab ha looga kiciyo, oo kan ha laga saaro, kan ha la geliyo, ama kan wasiir ha noqdo, ama kan whatever. wax allaale waxay faa'iido leeyihiin ma laha kulligood runtii haddii la isku sheegayo. walaalayaalow dadka aad u difaacaysiin iyo dadka aad maaragtay aad magicii afkiina u kala furaysiin ood maaragtay difaacaysiin ka daawada oo ka fiirsada. leanna waxa waa qabiil meel uu idin geynayo ma laha, wallaahi meel uu idin geynayo nisi jirin. bal hadda dhulbaantay isaaq ma kala maqna, waa isdhaldhaleen. aniga idala hadlaya labadaba way dhaleen, may fahmaysiin. marka waxa weeyaan midna waa iree abti, midna waa iree adeer.
وان كدشة لكن I don't care I really don't waxaan kargareyna waxay tahay leena wax weeyaan kana odayaal inta ka soo baxay yiraahdo waraan joojin ma jiro kana odayaal kale ka soo baxo yiraahdo war heede ilmaha meesha ku dhamaanay iyo waayeelo iyo hooyooyin adeegooda maalin kasta ilmahoodii korsanaya meesha ku dhamaanaya aan joojino waxaan maaragtay ma jiro actually waxaaba la leeyahay hub aan u soo gadano marka videoga ila daawada ninkan hadda waxa lagu leeyahay United States wuxuu ka yahay wanted FBI da raadinaysa leena intuu city hallki Minnesota intuu soo istaagu yiri jihad fi sabilillah aan galno ereygaas miya Mareykanka dhexdiisa laga yiraahdaa jihad aan jihadno oo hubka iyo lacagta iyo wax kasta sidii maaragtay Ukraine baba bixinaynaaba nin asagu Minnesota guri qabow ka soo baxay furniture-kiis u buuxa wuxuu kicinayaa masaakiin qutuliyomkoodii la oo gaajaysan buu leeyahay hal islaayo videogan ila daawada insha Allah kan soo jees maaragtay opinionkiina ka soo jeediya iyo waxay idin la tahay idinka iyo meesha marayna hadda waxa weeyaan waxa marayna meel xun every single day wallahi billahi video la isoo diraa ama laascanood gudeeda ama Hargeysa gudeeda ama Burco gudeeda ma aan soo saara dibadda ma soo dhigo oo video kama soo saara leena wax weeyaan waa fidno waa wax la isku fidnaynayo leena ma taqaanid videogan meesha laga soo duubay ma taqaanid goorta uu yahay waqtigiisa waxa lagu leeyahay shalay arinta dhacday waxa laga yaabaa arin 10 sano ka hor dhacday inay tahay waxa laga yaabaa waagi maxay ahayd maxamed siyaad bare u duqeynay Hargeysa inay tahay waxyaalo badan laga yaabaa inay tahay marka anigu ma believe garaysto mana rumaysto dadka isku diray fidnada kicinaya ee social media soo fadhiistay laakiin ninkan aad uu ii dhibay ereyga magaca jihaadka dadka masaakiinta araba inuu ku kiciyo oo yiraahdo waxaan siinaynaa maalkayga iyo waxaan sameeynaa dhiigaygan ku bixinaynaa dhiigaaga maxaa ku bixinay Minnesota fasaar barfad ku dhex jirta war raaxaysanaysaa ila daawada insha Allah salaamu calaykum iyo 92 magaalada Burco ka sameeyay maanta halkan waxaan isugu nimi annagoo ah Soomaali oo dhan aanu ka xunnahay dhibta ka jirta magaalada Sacaanood genocide-ka uu mas'uul ka yahay Muuse Handaraab Maxamed Kaahin iyo Nuux Taani saddexaani baa mas'uul ka waxa meesha ka dhacay cid kale oo mas'uul ka ama jirto iyo ninka raarta u dhafayo Salabangaal afartaas loo xakamadeenaya cid kale oo loo weydiinaya ma jirto afarta qof mas'uul ka waxa meesha ka dhacay iyagaan kula xisaabtamaynaa wax qabiil oo isku duulay Soomaaliyeed ma jirto waa dad soo duulay siyaasad wata gaar ah oo doonaya inay dhiiga dadka ku noolaadaan Hargeysa xoreeyna Burcaan xoreeyna Soomaaliya dhammaan xoreeyna waanu guuleysanaynaa reer Laascaanoodna way guuleysteen waana guuleysanaynaa balana waxaanu qanay Soomaaliya inaan midnimada soo celino laf dhabarta annaga u dhimanayna annaga u dhiman jirtay cidina xukumi mayso cidibna xukumi mayso cid hore nama xukin Muuse albaab khadam uu garaacay ciyaalka uu soo khalday Hargeysa Burco ka soo ururiyay waxaan leeyahay caruurta dadka dhalay ha u yeedheen haq cashadeen halkaas ay ku dhamaanayaan haddaan qof naga soo halayn qof waa ku dhamaanaynaa ila aanu xaqiijino waxa aanu doonano inaanu xor u noqono waxa aanu doonano gobolada anaga xor noqonayna cid aanu wax ka wadiinay ma jirto Muuse wax laga wadiinay mid kale wax laga wadiinay annaga mas'uuliyadda qaadnay annaga gacanta u taagnay qof damba wax laga wadiinay ma jirto wax Soomaaliya la yiraahdo oo aan wada leenahay ama aan wada lahaan jirnay ama aan ka heshinay midna ma jirto Soomaali baanu nahay Soomaali baanu ahaanana horana u ahay haddana u nahay ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxaan beenta laga dhaadhiciyay dadka waqooyi jooga wax Soomaaliya ma jirto waa reer Soomaaliyeed oo siman haday xoogaa qoryaha soo qaateen qoryaha waa la iibsadaa annaga ka hubiya lacag badan Ukraine baanu ka keenaynaa oo koonfurkaanu ka keenaynaa wallahi waanu garaacaynaa oo meedkaadanu aasaynaa war dadka haday musliyiin waanu abhinay dhig kama qabano oo dhul kama hayno dhulka iyaga iyo dadka iyaga yimaadeen waanu la dagaalamaynaa ilaa iyo qofka u dambeeya waxaan leeyahay reer Laascaanood dagaalama waa jihaad fi sabilillah dadkiini iyo caruurtiini gurihiina ma saalo burburinaya caruurtiina biyam la dhacaya maxaa doonaysan aakhire maxaa la tagaystaan waa fula dhalay waa fula dhashay qofka maanta ka hada jihaadkaas ee ka qayb gali waayo ilaahay adduunka ku cadaabo oo aakhiraha ku cadaabo qofka maanta wax xagrada ee dhaqaale la hada ee xoolo la hada ee wax jeclaysta ilaahay adduunka ku cadaabo oo aakhiraha ku cadaabo waa jihaad weeye cid maynan doonan Hargeysa kuma socono oo Caynaba kuma socono oo kuma socono war gureeyagi baan loogu yimi iswarna laga hayaa
للي وايد حكومينا إسلام نقول نقيمايان شريعة إسلام نقول نقيمايان أو كتاب موتان كتاب شيطان بوتان كبر بوتان أنا بوريدا كجوينا إن مصبحي إنا كائن بوريدا والله كشرنا بالله تالله guryaha la dumiyay iyo maatada la xasuuqay iyo dumarka umuraha oo dhaarina maagta dhakhtarada lagu dumiyay iyo masaajidada culimada iyaga jubciga ka maxay ka akhrinaya lagu madfaca lagu soo hagayo lagu ridayo baan u taaganahay cidna dulmi kaban yihiin annaga maxay tahay annaga dulman ummadda Soomaaliyeed meel kasta